miyaad beledkan dhulka kale u badan tahay baydhaba waa mid ka mid ah astaamaha lagu garto Muqdisho ka sokow in ay ka qayb qaadanayso bilicda waa xusuus maguurta ah oo u taagan halyeeyo Soomaaliyeed oo kaalin muuqata ku lahaa gobonimada sidoo kale waxa ay cashar taariikh ah u tahay dhalinyarada faa'iido way leedahay haddii dadka hore loo fiiriyo waayo dadka hore waxay u ahaan jirtay waxa ay ku faanaan ee dhahaan qof hebel ah suubiyay ama hebel ah lagu munaasabadiisa waaye ama saasa loo suubiyay laakiin anaga waxay noo tahay kaliya darbi burbursan haddii laakiin qiimaheedana la tuso iyo waxa ay tahay taalada waa aqoonsanaynaa dhalinyarada dhashay kadib burburkii dagaaladii waxay ogaanayaan inay leeyihiin dalkooda halyeeyo kuwaasoo dalka u soo halgamay oo soo maray taalada Axmed Guriyana waxay ka mid tahay astaamaha ugu weyn ee lagu garan karo caasimadda Muqdisho Soomaaliya burburkii ka dhashay dagaalada ayaa saameeyay balse iminka waxa ay u muuqataa mid soo ceshanaysa kaalinteedii halkan waa taalada Axmed Gurey bartamaha magaalada Muqdisho balse inta badan dadku waxay u yaqaanaan taalada number 4 taa oo muujinaysa sida ay meesha uga sii baxayso ujeedada ugu weyneed ee taaladan loo dhisay dadaalada dawladda oo ah kuwa kooban oo ku siman dayactir ayaa qayb ahaan ku guulaystay in ay muuqaal wanaagsan siiyaan wadooyinka caasimadda ee mara hareeraha taalooyinkan annaga horta muqdishada ay ahayd baa naga go'an ku soo celino qorshaha way nagu jirtaa taalooyinkii taariikhaha dib u soo celino ilaahay idinkiisa insha Allah laakiin maalinba taag baa la qaadaa taagteena iyo tabarteena hadda waxay noqotay horta inaan dayactirno aan hagaajino laakiin qorshaheena way ku jirtaa fog in taaladii Axmed Gurey ee la yaqaanay in la dul saaro dhagaxtuur la yaqaan la dul saaro xawataaka la dul saaro waa naga go'anta taas qorshahana way nagu jirtaa insha Allah ta'ala maqnaanshaha astaamihii halyeeyada oo la boobay xilliyadii burburka ayaa loo arkaa in ay sababi karto jahwareer cusub inta badan taalooyinka oo ay dhistay xukuumaddii militariga ahayd ayaa ku yaala bartamaha magaalada Muqdisho haddaba qiimo intee la eg ayay bulshada u leedahay marka laga hadlayo taariikhda Soomaaliya labada mabday u taagan waxa weeyaan qofkii dalka u soo dhintay ama yaanu u soo dhimanay yaani kaalin fiican horumarkiisa ka soo qaatay in loo taago lagu maamuuso lagu sharfo midda labaadna waxa weey u taagantay taaladu jiilka soo koreeyay ilaa dadkan way tagayaan in la tuso dalkooda dadkii wax u soo noqday ee yaani wadankan waxan soo qabtay yaani inaan taariikhda la duugin labada waxay u taagan yihiin burburka ayaa sidoo kale saameeyay xarumo dawladeed oo iyana taariikhi ahaa sida dhismahan oo bari ay ku shiri jireen xubnihii baarlamaanka Soomaaliya Cali Nuur Salaad BBC Muqdisho